عبد الرحمن بن صخر. ما شاء الله wax in la cuno ay xalaalta in la iibina xaraan ay maya su'aal kale ma weydiin karaa quraanka waxa lagu sheegay 126 maalin dhawato muuqaalkii saddexaad aan soo gelinay ee aanu kaga hadlaynay dadka ku weydiinayno su'aalo diini ah inta badan lagama jawaabin ma qam su'aalaha adkaay ma dadkaan isdiyaarin ma ogi marka insha Allah taala haddana sidoo kale su'aalihii baanu dadka weydiin doonaa hadii Ilaahay idmo iyo isli qaybta afraad hadii Ilaahay idmo insha Allah taala su'aalihii marka dad yar baa ka jawaabay نبي أن أبلهين وبديه وكمان نبي آدم وكمان نبي عيسى عبد الرحمن بن صخر. ما شاء الله quraanka waxa lagu sheegay 126 آسيو مريم خديجة بنت فاطمة فاضو ما شاء الله ما سنتاي كي فرعون fajr dadkaas aad baan ugu hambaleyna insha Allah taala waxaan leeyahay waa dadaasheen siina wada dadaalka hadii Ilaahay idmo waxaan kaloo rabaa insha Allah taala su'aalihi aan laga jawaabina qaarkood inaan ka hadlo su'aashii koowaad waxay ahayd midatan bal aan daawano insha Allah taala idinkan oo arki doontaan su'aasha daawada kadibna jawaabta soo gudbinayna hadii Ilaahay idmo insha Allah taala sidoo kale ha moogaani inaad muuqaalka la sii wadaagto asxaabtaada waayo meeshan wax far badan baa ka faa'iido doontaa su'aalaha haddan insha Allah taala ajaa'ib badan bay leeyihiin ka faa'iideyso bal su'aashan daawano insha Allah shaydaan aw intuusan Ilaahay ku caasin ibliis marka hore maxaa liidi yoonay shaydaan iyo ibliis loo qana magac kale kuma aqoon marka su'aashan marka sa hadda aad daawateen oo aragteen waxay ahayd magacii hore ibliis magacee loo yaqaanay ibliis intuusan Ilaahay ku caasin waxa kamid ah dadka malaa'iktu la joogi jiray laakiin asal ahaantiisa jinni buu ka imaaday magaciisa horena waxa la dhihi jiray Azaazil magacii hore ee ibliis intuus Ilaahay ku caasin waxa la dhihi jiray Azaazil dadka culimada qaar waxay yiraahdaan waxa la dhihi jiray Al-Harith markaas waxa rajaa insha Allah taala inaan ka faa'iideysateen jawaabta su'aashaasi mar kale hadii la weydiiyo ha isku gafinina waa maasantiin su'aasha labaad baan u galeynaa insha Allah taala ayadana bal aan daawano si aan ka dibna jawaabta aan u soo gudbino waxaa sheegtaa nabiga aan wali cidna rumayn nabiga qof hagaag su'aasha waxay ahayd saad aragteen nabiga aan wax rumay aysan jirin sidaad ogsoontihiin quraanka ambiyo badan baa lagu sheegay Ilaahay wuxuu soo diray rasuul fara badan in dadkaan hanuunkii xaqi u sheegaan waxaa jirta marka nabi aan wax rumay aysan jirin maalootina su'aasha dadka aan weydiinay ku jirta laga mana jawaabin sa hadda muuqaalka ku aragteen jawaabta su'aashaas waxa waaye sayyidina Luut alayhi salaam wax rumay ma aysan jirin marka waxaan rajeynayaa su'aashaas ka faa'iideysateen oo la sii wadaagi doontaan asxaabtiina su'aasha xigta aan daawano bal waxaa sheegtaa khaamis khulafaa raashidiin Abu Bakar su'aashan waad fahanteen waa khaamis khulafaa raashidiin kumu ahay qoladee ummadda isku raacda culimada yiraahdeen loo aqoonsan jiray khaamis khulafaa raashidiin inta badan afarta khulafo ay dadka garanayaan سيدنا أبو بكر سيد عمر سيد عثمان سيد علي لكن خامس خلفاء الراشدين وننكي عدالة بدناي وحاول خير فربنا كسرنا ومد إله أبركي مجلس سنة هاي عمر ابن عبد العزيز نقاسين عجائب لبوهاي ومدنا إله ومدنا الضمد إله ترجري وحفر بدنا ومد كذا حشي وحل الزمن كيسو جوين عدالة دي سنة ملك الساعة منتي وحرجنا الناس سؤال جاوبت هذا شان وعمر بن عبد العزيز سؤال شعكتا هايات صحابي ملائكة سلام جرت سؤاشان وصحابي سلام جرتي ملائكة ما لبا وقارتين هرحلالك للدون oo la isweydiinayo laakiin maadaama annaga ujeedkeenu iyo dadkeena diinta fahmaan oo aysan ka cabsanin oo ku dhiirigelin aanu diyaar u nahay annaga naftirkeena arday aan inaan baranno dadkan ay ka faa'iideystaan saxaabigaasi Imraan ibn Hussein baa la jiray Imraan ibn Hussein baa la jiray saxaabigii ay salaam jirta malaa'ikta hagaag su'aashi kale oo ayadana aad commentiina lagu soo weydiiyay waxay ahayd oo aan gabadhan weydiinaysan ka jawaabin bal su'aasha marka hore aan daawano kadibna aan isku soo noqono wax in la cuno ay xalaalta in la iibina xaraan ay maya su'aal kale ma weydiin karaa okay su'aasha marka ma maxay saad ka fahanteen su'aasha wax inaad
la cuno ay xalaal tahay in la iibiyana xaaraan tahay waa hilibka udxiyada udxiyada waxaa xaaraan ka ah in hilibkeed aad iibsato laakiin in la sadaqeeyo la cuno waa xalaal wanaagsan ajir fara badan ay leedahay laakiin haddii su-aashaas marka la weydiiyo waa udxiyada cadiim udxiyada fasir ya udxiyada fasir udxiyada udxiyada ka badanaa fahmayna Soomaaliya isla xamar hadda isku buuxaan arafada la qaybiyo dhamaha geli baalku hilibka arafada la qaybiyo hilibka arafada la qaybiyo riyaxka okay su-aasha xigta marka waxay tahay bal aan dhageysano ummadan fircoonkeeda ninoo nabiga nanas uga dhigay ninka Ali sallallahu alayhi wasallam su-aashan marka waxay ahayd waxaa sheegtaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ninka ugu naaneesay fircoon haadil ummadan fircoonkeedii waayo fircoon nin dhib badan buu ahaa nin ilaahnimo sheegta buu nin rafaad badan geysta buu ahaa nin marka waxaa jira xilliga nabiga calayhi salaam joogay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam aad u dhibay markaasuu nabiga wuxuu ugu naaneesay fircoon haadil ninkaasina wuxuu ahaa abu jahl buu ahay inaanu su-aashaas ka faa'iidaystaan baan rajeynaa insha allahu tacaala oo marka dambe aad hor uga jawaabtaan su-aasha xigta ninkii ugu horreeyay ee faras fuula ku ahaa ninkii igu horreeyay ee faras nabi ciise su-aasha kale waxay leedahay qofkii ugu horreeyay faras fuula kuma ahay su-aashaasina gabdhahan in badan bay ka naqaasheen waa ay haleeli waayeen su-aashaas marka jawaabteeda waxaa waaye sayidina ismaaciil calayhi salaam waxaan rajeynaynaa iyadana su-aashaas aad ka faa'iidaysataan si aanan waqti ugu dheeraan insha allahu tacaala su-aasha xigta bal aan daawanno casratul mubashiriin qofkii ugu dambeeyay oo dhinta ku ahay I think Hamza. su-aashaas marka jawaabteeda waxaa waaye sacad ibn abi waqaas waxaan rajaa mar dambe haddii la weydiiyo inaad haleeli doontaan insha allahu tacaala cadiim su-aasha xigta waxaa sheegtaa saxaabigii keliya qur-aanka magiisa lagu sheegay Abubakar. su-aashan waxay leedahay marka waxaa sheegtaa saxaabadii mid ka mid a saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee qur-aanka lagu sheegay si cad magaciisa oo aan yacni kunyo aan ahayn magaciisa caadiga ah wuxuu ahayd zayd ibnu xaarith waana qur-aanka lagu sheegay waana saxaabi keliya ee magaciisa qur-aanka lagu sheegay su-aasha sidoo kalena ka faa'iidayso oo mar dambe yaysan soo noqon insha allahu tacaala walaalahana muuqaalkan la sii wadaag bal su-aashaan daawana insha allahu tacaala waxaa sheegtaa maalinta ilaa agtiisa ugu weyn maalinta yawm alqiyaama su-aasha waxay leedahay waxaa sheegtaa maalinta ilaa agtiisa maalmaha maalinta ugu weyn waana maalinta yowma naxri loo yaqaano oo ku beegan maalinta tobanaad ee dilxija ama ciidul adxa maalinteedii koowaad maalinkaas baa la yidhaahdaa yowma naxri maalintaas waxaa maalinta xoolaha la qalo masaakiinta la quudiyo dhanka kalena maxaa la yidhaahdaa waana jawaabta su-aashaas waxaa sheegtaa makhluuq ugu dambeeya dhiman doona kee waa wallahi ma garanayo laakiin malakan su-aasha ugu dambeysa aan ka jaabi doono haddii ilaahadma waxay tahay waxaad sheegtaa makhluuqa ugu dambeeya ee geeriyan doono ilaan waxaan makhluuq dhan way dhimanayaan dhammaantood ilaahay subxana wa tacala cid kaloo haraysa ma jirto malag ahaa insi jinni nuuc oran waa loo dhimana qofka ugu dambeeya dhiman doonana waa malakulmowt baana geeriyan doono ilaahay keliyan baa soo haray insha allahu tacaala ilahay waxaa weydiisana ilaahay khaatimada noo wanaajiyo dembigeena iyo dembi waaridkeena ilaahay dhaafo insha allahu tacaala maalintan barakadeena ilahay inuu nagu xafido oo waalidiinta dhimatay ilaa u naxariisto intii xanuunsanna allah caafiyo intii kurbaysan kurbada allah ka feedo intii deemaysanna deemanka allah ka bixiyo qof kastoo naga mide oo muraadkuu leeyaho khayran allah u sahlo insha allahu tacaala walaalaha khayr ka jecel meel kastoo joogtaan aad baan idiin salaameynaa haddii ilaahaydmo waa inoo kulan dambe oo xiise leh iyo maalinka xadda oo aanu su-aalaha ku weydiinayno insha allahu tacaala dadweynaha xaafadda islii haddaad ka mid tahay kasoo qaybgal wacan insha allahu tacaala gaari suruj baa noo balane aad baan idiin salaamayaa haadaa wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu